بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجبوتيو meeshaad dunta joog, dibadda joog, gudaha joog, waxaan inagu salaamayaa salaantii islaamka inagu salaamayaa. ilaahay hanoo wala aqbalo, naxariista nabadgelyada hana wala siiyo. walaalayaal, maanta waxay soo geliyay halkani deeqa ciise gabadhaa yar waxay samaysay ay gaadhay. weli nihe Jabuuti oo gaadhay way yartahay, ma jirto xarbi beed ee daba socotaa gabadhaa yar. waxawey xarbi dariiqiisii bay daba socotaa. tilmaan fiican bay nii sheegaysaa. wax garad oo dhan way u sheegaysaa. ninkii aqoonle bay u sheegaysaa. ninkii wax nac oo dhan bay u sheegaysaa. waxay leedahay demokrasiyad run ha dhalina dalkeena, nabad ha ku dhalino, nabad ha galino. qori may qaadan, waxba may samaysan, meel kale ma tegin. aqalkeeda iyadoo joogtay jira halkaa maagsa dhigaya dareeskii. waxaan doonayaa midnima ma doonayaa, walaalnimaan doonayaa, xornimaan doonaa, demokrasiyad baan doonaynaa, ya aabbaho noo hagaaga doonaynaa. waxay tiri gabadhaa yare waxbay nisisay cilmi, waxbay noo dhigtay, iskoo bay noo dhigtay. reer Jabuuti oo dhan bay iskoo u dhigtay. khaas ahaan baarlamaanka wax u dhigtay. khaas ahaanna baarlamaanka iyo gobornamaaga wax u sheegtay. wax wanaagsan bay u sheegtay. hadday wax ku qaadanayaan, hadday wax nac leeyihiin, hadday wax ninkii wax nac leh waxbuu ku qaadanayaa. waxbay nii sheegtay gabadhaa yar. allah cimrigeeda hagaajiyo, allah cimrigeeda hagaajiyo, allah ka jasaa'isiiyo, allah ka jasaa'isiiyo waxay qabatay. xayashan allah ka jasaa'isiiyo. taa ka imaado waxaan leeyahay fuaad yuusuf cali si kastaa looga hadlay. nin kasta buu ka hadlay, nin kastaba suu doonaa uga hadlee. waxaa la soo gaarsiiyey inaa la yidhaaho maxay war siidaa ninkaas siidaa, in cumar iska siidaa, nabadgelyo ku siidaa. waxba muu dhimin, wax alla wuxuu sameeyey ma jire. iska siidaa, dalkiisa u siidaa, xornimadiisa u siidaa. waxbuu nacay, waa la meedhay oo ilaahay herkiisii dadkiisa gaadhsiiyey. kolka meydhaadaabuu nacay, meydhaadaabuu ka baxsaday. meel kale ma tegin. meeshaad ku sheegaysa lagu sheega lagu masabidayo ma tegin. etoobiyuu tegayna si fiican buu kuula soo hadlay. in cumar si fiican buu kuula soo hadlay, aad buu kula soo hadlay. war waxaa kaloo jiraa ku kharibaya, waa reeraha ku kharibaya, waa dadka dhulka dhigtaa ku kharibaya, waa dalka eeg uu kaa yidhi, kula soo hadlay. aabba buu kaa yidhi weliba ku noqo hadalkii ku hadlay etoobiya markuu joogay. bal aada u fiirso ku noqo. wuxuu ku yidhi meedhadiisii kuu sheegtay, waxqabadkiisuu kuu sheegtay, waxa lagu sameeyey kuu sheegtay. maantana waa adigaa eliteria ku masabidayo. eliteria wax ma tegin, mana tagaayo, mana tegi doono. reer Jabuuti oo eliteria tagaayana ma jirto. taa dadkaa maxay ahayd qofkaad marbayse u samaynaysiin baad ku sheegtay eliteria, laakiin reer Jabuuti oo etoobiya tagayo ma jirto. ku hor u tagayna ma jirto, ku imika tagayna ma jirto. ninkii wax doonaaye wax ka hadlaaya, dalkiisu ku hadlayaa, Jabuuti ku hadlayaa, Jabuuti dhexduu ka hadlayaa, dalkiisu dhexdiisu ku hadlayaa. dalkiisa dhexdiisa yuu ku sheeganaya wuxuu doonaayo. naku wax dibad nooga baxa ma doonaayo, wax badrida ma doonaayo, wax maxay dalkeena guba ma doonayno. si kastaa la noola hadlo. aqalkeena kabriid ma qabasiinayna anagu. nin aqalkiisa kabriid qabasiiya lama arag. laakiin nin diidaya arkay oo dabsidayo ayaan arkaynaa. in cumar iska diidayo oo dadkiisa inuu qabojiyo diidaayo. sheekh iyo shariifo kula hadlay. waar siidaa baa fuaad siidaa, war gabadhaa yar siidaa, war deeqa siidaa, war fuaad siidaa baa lagu leeyahay. kama ahday weli ilaa maanta. waa 3 bilood wax ka hadlaaday. ay dad Soomaalina baad u yeelayso, waan heshiinaya baad leedahay. dhaqalkaaga baa gubanaya. horta aqalkaaga ka hadal, intaad dad kale ka hadal. sidaa yoo dadka aqalkaaga ka hadal. mas-uuliyadda ku saaran eeg. koorcaan gaar ilaahay loo iyo caddaynta u dhexaysa ayaa mas-uuliyadda lagu weydiinayaa. habeen kasta qof kasta wuxuu ku baryay ayaa lagu weydiinayaa. calooshiisa inuu dhergsan yahay, inuu gaajoon yahay lagu weydiinayaa. war eeg ku noqo oo waxaad baalasha kitaabka ku dhaaratay ku noqo aada u eeg. mas-uuliyaddaa ku saaran eeg, dalka ku saaran eeg, dadka ku sugaayo eeg, inta kula hadlayo jawaabkaa sugaysa eeg.
war aada uga noqo, aada u noqon kuleenahay. waxaan kuleenahay qofka bini aadamkii oo sida koodrud buu leeyahay, qof kastaba sida baawrada kontarool leeyihiin iyo bini aadamkan u leeyahay. wuxuu leeyahay frame buu leeyahay, banosta buu leeyahay, maxaa ahayd wax kastuu leeyahay. kolka waxaasoo dhan waxa u ah inta hareer joogta iyaa ka joojisa, wixii xuna ku raacda, wixii dariiqa baanugana u sheegta, islaamka u sheegta, fareenka ugu qabato qofka la hadasho bar joog ka tahay, waxaan ka joog tani ma fiicna ka joogtidaa. intiiba shacabka ku tumaysa, in shacabka u tumad maayo wax kale ma doonaysid inay kula hadlaan, ma doonaysid. waxaad ka soo qaaday minister antereeka, waxaad u dhiibtay mas-uuliyad weyn baa saartay. minister antereeka mas-uuliyad weyn weeyaan, waa ninka inii dhexeeya, adiga shacabka inii dhexeeya. wuxuu ahaa kolkuu waxaa dareemay u arkay, wuxuu ahaa inuu adigana wax kaa gooyo, iyakana wax ka soo gooyo, u dhexda isku keeno, uu nabad dhaliya bay ahayd. inuu nabad dhaliyo, wanaag dhaliyo, dadkana wax u sheego, adigana wax kaa soo gooyo, iyakana wax ka soo gooyay ahayd. kolkaasi wixii ma samayne askar buu dadku ku sheedhiyey, maxay ahayd hadidaad buu dadku ku sii daayey, uu hadiday, uu askar buu aqalka sa dhigay. waxaas maxay tartaa dee? xoog wax ma taro, xoog wax ma daweeyo, xoog wax ma daweeye. caqli baa wax daweeya, caqli baa wax daweeya ibn cumarow, caqli baa wax daweeya. kilibarkii baa kaa halaabay, kilibarka dad kuu soo celiya samayso, dad kuu soo celiya samayso, xaqa u soo noqo, runta u soo noqo, wanaaga u soo noqo, iska siidaa, deeqa siidaa, yuusuf cali siidaa. wixii kale ee jirana odayaashii dalkaan waan ka hadlaynaa, waan kula eegaynaa, waan kula qabanaynaa, waan kula toosinay. ciideennii waa sanad guraageennii weeyaan, sanad guraageennii weeyaan. waa waktigii maxay ahayd aan farxi lahayn, mucaarida muxaafid baan farxi lahayn, nabad ku ciidi lahayn, bashashi barwaaqa aan ku ciidi lahayn, inakoo faraxsan, inakoo nin kastaba halkiisa ku ciidaayo, nin kastaba maxay ishambalyeynayno, waktigaan ciidi lahayn weeyaan. dhowr cishaa ka hadhay, dhowr cishaa ka hadhay. waxaan leeyahay cumaru ka faa'iideyso, waktigaa ka faa'iideyso. waa waktigii dadka la saamaxayay, waa dadka inay kareemigdeen xitaa la saamaxaya weeyaan. waa waktigii maxay ahayd walaalnimada la beeraayey, wakti wanaagga la beeraayey weeyaan, laisku beeraayey, la isxasuusinaayey wixii lasoo maray, waxaan u hagamayno, waxaan haysano, laisku hambalaynay weeyaan. war waxaan leeyahay ka faa'iideyso, waktigaa fiican ka faa'iideyso. ee maanta aad haysatay ee beri aad helayn. maanta waad haysataa laakiin beri ma helaysid. maanta waad haysataa, waa lagu doorayaa, war siidaa baa lagu leeyahay, waa lagu weydiisanayaa, laakiin beri laguma weydiisanayo. beri toole mooyaan waxay dhahed ilaahay baa garanaya. war waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso oo wanaagaa doonayno, dalka jacaylka la jecel yahay, ee la dhowraayo, ee maanta nin kastaba iska naniyaayo, ee iska celinayno. waxaa la doonayaa inaad adna garatid, adigii garan lahaa, ee waxa wanaaga ka talin lahaa, ee xumaanta qaboojin lahaa, ee dul qaadan lahaa, ayaa dabsii shaaya. war ka faa'iideyso maanta ayna farseerka ka faa'iideyso oo ninka iyo gabadhaa iska siidaa, ya deeqa iska siidaa, yuusuf fuaad yuusuf calina iska siidaa, labadaa iska siidaa. wixii kalena waa laisku imanaya insha allahu tacaala. inakoo mida, inakoo waan hagaajinaynaa, waan hagaajinaynaa, waan dhex galaynaa, wanaag baan dhalinaynaa, wanaag fiican oo naxariis leh oo caafimaad leh ayaan samaynaa. dadku waa laba weeyaan, mid tola iyo mid dalaaciya weeyaan. warna ku tolaan nahay, dilaaciye ma nihin, kuwa dilaaciye ma nihin, kuwa dilaaciye ma nihin, mana noqon doono. waan tolaynaa, dadka waan isku tolaynaa, dalka waan isku soo celinaynaa, waan hagaajinaynaa. wanaaga waxaan u dhimanay, intaasoo u dhimanay ee u sabrayno, waa dal jacayl weeyaan, wadan jacayl weeyaan, dad jacayl weeyaan. waxaan doonaynaa in cumarow lagu weydiisanaya iska siidaa, fuaad yuusuf cali iska siidaa, deeqa ciisana iska siidaa. waa wanaagaaga, waa wanaagaaga, waa wanaagaaga weeyaan, iska siidaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan leeyahay cumaru ka faa'iideyso, waktigaa ka faa'iideyso. waa waktigii dadka la saamaxayay, waa dadka inay kareemigdeen xitaa la saamaxaya weeyaan. waa waktigii maxay ahayd walaalnimada la beeraayey, wakti wanaagga la beeraayey weeyaan, laisku beeraayey, la isxasuusinaayey wixii lasoo maray, waxaan u hagamayno, waxaan haysano, laisku hambalaynay weeyaan. war waxaan leeyahay ka faa'iideyso, waktigaa fiican ka faa'iideyso. ee maanta aad haysatay ee beri aad helayn. maanta waad haysataa laakiin beri ma helaysid. maanta waad haysataa, waa lagu doorayaa, war siidaa baa lagu leeyahay,
waa lagu weydiisanayaa laakiin beri laguma weydiisanayo beri toole mooyaan waxay dhahed ilaahay baa garanaya war waxaan ku leeyahay ka faa'iidayso oo wanaagaa doonayno dalka jacaylka la jecel yahay ee la dhowraayo ee xumaanta nin kastaba iska naniyaayo ee iska celinayno waxaa la doonayaa inaad adna garatid adigii garan lahaa ee waxa wanaaga ka talin lahaa ee xumaanta qaboojin lahaa ee dul qaadan lahaa ayaa dabkii shaaya war ka faa'iidayso maanta ayna farseerka ka faa'iidayso oo ninka iyo gabadhaa iska sii daa ya deeqa iska sii daa yuusuf fuaad yuusuf calina iska sii daa labadaa iska sii daa wixii kalena waa laisku imanaya insha allahu tacaala inakoo mida inakoo waan hagaajinaynaa waan dhex galaynaa wanaag baan dhalinaynaa wanaag fiican oo naxariis leh oo caafimaad leh ayaan samaynaa dadku waa laba weyaan mid hola iyo mid dalaaciya weyaan warna ku tolaanahay dilaaciye manihin kuwa dilaaciye manihin kuwa dilaaciye manihin mana noqon doono waan tolaynaa dadka waan isku tolaynaa dalka waan isku soo celinaynaa waan hagaajinaynaa wanaaga